salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inta in ka badan kalimayna dad islaamaan nahay waxaynu ku furanaynaa aayada quraana. waxaan u yeedhay Saciid Ibraahim oo aayad quraan xakan looga fura dhageyso waan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله إنه أنفعه خير كان الله إنه وافجيه. أنت سكدب أنت نهدنا حوله نيك لو جذا قلين حنو كحجس سندونا هستي calanka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya hallo istaago hallo luqeeyo hal soo dhaweeyo. intaanu yeedinaan waxooga ka hadlo dulmar ahaan caaw horta waxaan isugu nimid waxa weeye shirkii wada tashiga ee dawlad deegaanka Soomaalida xukuumad ahaan xisbi ahaan salaadiin uqaal haween dhalinyaro dhammaan kabineedka iyo guddi fulin iyo golo dhexe ay kaga qayb galeen degmada Raaso go'aanadii ka soo baxay ajandayaashii laga hadlay dhammaan waan soo dhaweynaynaa waana bogaadinaynaa. intaasi kadib shirka wada tashiga kii koobaad maaha dawladda waxa uu qorshaysan 6 biloodba in meel lagu qabto deegaanka kamid ah. ujeedada 6 bilood loo qabanayaa waxa weeye madaxweynuhu socdaalo badan uu sameeyo tuulo iyo degmo iyo gobol kasta kuma gaari karo. hase ahaatee shirka wada tashiga deegaanka degmooyinkiisoo dhan gudoomiyayaasha oday dhaqameedada deegaanka ilaa Liibaan ilaa Afdheer gobol walba la city ayaa isku yimaada jaan soo hela xukuumadooda madaxweynaha jaan soo hela looga warama horumarkii isbedelka jira wixii tala iyo tusaale ay hayaan iyo laga dhageystaa waa isxog waraysi weey. waxayna ka mid tahay nidaamka dawlad wadaag ay ka mid tahay in xukuumaddu ama madaxweynuhu intuu shacabkiisa shir isugu yeedho oo dhaxteeyo oo ma taqaanay muddo halka ku wada qaataan wada seexdaan halka wax ku wada cunaan waa qaybta maamulka suuban bay ka mid tahay. hadda ka hor fiiq barcaano ama birqod deegaano badan baa lagu soo qabtay. intaasi waa arinta ugu weyn sidii jaaliyadeena lagu yaqaanay oo ah hooyadii iyo aabihii jaaliyadaha qurbaha inaanu mar walba isgarab taagno xukuumadda wixii horumar iyo wanaag ay deegaankeenii ka wado aanu garab istaagno uguna mahadino.
wixii abaaro iyo sidii berihii dhaweyd barodiiqda oo kale inaanu isgarab taagno dadkeenaasi sida xaqdarrada lagu xasuuqay jaaliyadu mar walba waxay u taagan tahay hiil iyo hooba inay xukuumaddeeda xisbigeeda iyo dowlad deegaanka hoggaanka ugu sareeya madaxweyne cabdi maxamed cumar dhammaan aynu isgarab taagno wey anigu hadalka kusii dheeraan maayo dad in yar dul qaadataan 1977 kii aan waddanka ka tegey waxaanan ku soo laabtay 1991 anigoo 14 sano waddanka ka maqnaa dhammaanteen ila mid baa tihiin markaanu waddankeena ka caranaynayna rabitaankeenna kagama inaan duruuf iyo dhibaato ayna haysatay baan uga cararnay markii dambe aan ku soo noqonay duruuf iyo dhibaato Soomaaliya iyo burburkii ka dhacay baan ugu soo noqonay maalinta aan jigjigay mid 1991 kii waxa weeye guriyihii magaalada ka dhisnaa waxa weeye waqtigii 1977 communistihii hantidii dadka ugu qarameeyay uu qaatay intii soo hadhayna dagaalkii 77 markii aynu ka soo qaxnay waddanka ayaa guriyihii kalena la qaatay dad aan ehel u ahayn dhulka oo rajo ka qabin ayaa dhulkii oo dhan degay ma ayna jirin waxyaabahan xasuustay ugu weyn waxaa ka mid ah jigjiga مسؤول هجاكسن حتى ما ينجرن أنت ممكن مركان كل لابن لما دولة جناس برتمها مقالة كويس توق ومدة توبية كمدة مقعاب ماي حتى ما ينجرن مالها بسنس كودي مال مسؤول هجاكسنا بقى أنت لو حارة على هذا حقيقة جرتان كهذا يا ميكا لو رجري أي بنانك لو سوتو رجري ودعي صلاح دي مركز سوكر تعضو إسكا الصعدو وروها أنت كوجو ستين بعد كوجو ستين سحارة كوجرتو حنقول جو صاها مركز النظام كان فدراليزم كوي مدي اللي يقوم يدور حول هذا إن يدو اسمه مشو مقالة جيجيجا كارهان وقال مدح الجودة بهاد مركا إن ما ملك يقول ريه هير دقمو جيجيجا كليان كهذا وحكفنا جيجيجا شن حفيز أو أورما لا هناك أورما أبو أورما إسلاميك ما تقارناي تان أو فيديو شن حفيز باكفرنا وجددوا أنت حفيزة كلية ما هنا مالو والبابنا بح أنت مقالة جيجيجا لقى سمعيه أيها لوري جيجيجا أنا قاله هذا أورماناي أنت كلية كومي كي حفيزة ده سخرش يلا عقب يدتك بحنجرين حدي تالوايو إن النقطة سيدة الإصابة أو كلام مقالة لودلية يقوم يده يتوبيا كده حيست ما ملك جور أن مقعوني وأنا مقعوني الله نحرسته إن علي حسين عرفاله كحيينا محمد أو علي كاهن يحقنوا علي بدلها وحان أودي كروين إن ما ملكي حرت أنا صوت دورني إن يلو رجال ما ملكي صوته ما ملكه ريولي درجية يضد فكرة ذاك على قلدان أوجد أي سورة قالوا حتى ما ملكي إن قعنت كلنا وحاد عدوا تاريخ اللوجي هاي مدحويني يقول ريي عبد الله محمد سعدي يا سياد بكري مدحوين حجينكي سي أنت لا حضلي أيها اللي روح حد الديمقراطية دوات شيء إنسان ما ملكينا ضدك دجان كأول الشيء إن اللو رجال ولا النهر تاجين هاي وحلا صدر وفد إسماعيل عبدية كمدها ديريا نيلوري جريبا كمدها حل بنا لصدر حل بنا دي مركب ماشي يمادين لمن كان ماشي شوقي بنفط الجبهة هذا يحاينا ولا أذو حد ذي سنين مالنت هي حبين كبا ورقد اللوجي اللي هدي ما ملك اللودي عركة سودجي بقال هذا هو لوك الجوري بقال هذا هو بابا عيسى لما كان ما ملك اللوم بدي بكرج جيجا وأنا النقطة بقال قوم يدا يتوبيا وسميهين بقال سوماليا معها أنك حق له أو رمى هذا هاي عد والبدان أنك كذا وحيسون وكذا بدن أرنتين جدي كلا صادر وحبيك قبل وايد وحين نقطة عبد الله محمد سعدي يوسيات بكريتي ملس زيناوي الله هذلين رئيس الوزراء دلك مركز أي مدحوينا بتكون إن إلى هذين حديد جيجا مامل كذي لجوا رجوا يدتك وانيس عسلينا وحفة درالو إجراء مجرو وحمد تقنا مسؤول دتك أن كنا هنا مجرو حديد دتك حقوق ذيبة إن اسم مامولان كيو اللي يقوم يد ولا إسكت أسكون ماموش جيجا ولي حركي لجوا رجين لا ياي وحيقصب نقطة أنت أسمر كذا عضي إن حركي لجوا رجين حتى لو حل النودي ذي علن كي دجان كأننا قبلية دي لحدي قبلية ما أنت تشجيع طبعا قبلية كبدن بمرة ساي لحدي قبلية إن علن كي دجان كا الدولة دجان كسومالينا كتاجنا هذا النودي ذي
waxaa dhacday taariikhda in la xusay u baahan tahay qofku wanaagu galo in la sheego waqtiga gudoomiye ku-xigeenkii oo ahaa maxamed aw cali kaahin ayaa habeennimadii intuu saddex soo maray lixdii qable uu calankii ka dejiyey ayuu calankii deegaanka saaray waa markhaati madoonta weeye magaaladan maanta sidaa soo martay waa maanta waa magaalo madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waftii ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo mataqaana Bashiir Cabdiruus iyo Gure iyo mataqaana Suldaan iyo Cabdifataash Cabdilaahi halkan noogu yimaadeen waxaan ku maxamed nagula hadlaysaan dadkii la kulmay baan ahay Bahirdar haddaad tagtid Naazireed haddaad tagtid qoomiyadaha magaalo madaxdooda haddaad tagtid way ka faa'iideysteen dimuqraadiyadda iyo dhaqaalihii la siinayay magaalada degantiina jigjiga buska ka dhacaya wada hagaagsan ma laha tuulooyinkii degmooyinkii maxaad wax nooga sheegaysaa oo waxbaan qabanay madaxweynuhu markaa wuxuu Cabdi Maxamed Cumar hoggaanka nabadgelyadu ahaa waxay qasab noqotay in taladii ay qaateen magaaladii jigjiga la yidhi master plan baa loo samaynayaa cusub xaggay degmo ka ahayd ewel degmada dhaqaalihii soo gala ee jigjiga ma magaalada wax laga qabtaa ma deegaanadii ay xukumaysay wax laga qabtaa waxay qasab noqotay in la yiraahdo waa city miisaaniyad gaara iyo dakhli gaara ayaa degmada jigjiga ay yeelatay sidaas la mid ah markii dambana qabri dahri iyo dhagaxbuur iyo guday wajaale iyo lagu sii daray iyo qabri bayax waa horumar la taaban karo marka waxaan halkii ku soo kunaanadayaa hadee ninka aan jigjiga taariikhdiisa hore u aqoonin iyo marxaladii ay soo martay iyo sida u ekayd iyo maanta sida u eg tahay kaliya waxaan ugu filan maanta inaanu alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay nimcadaan haysano noo sii siyaadi sheekada haddaan wad idhaahdo caawo dhan ma dhammaynayo raalli ahaada waa iga xasuusin iyo unbayga ahayd iyo inaan xukuumaddan waxa qabatay aan u mahadnaqno oo isgarab istaagno aan ku soo dhaweynaya hadalkii waan dheereeyay raalli ahaada gudoomiye cali takhal oo isna dhowr hal oo isbedelka iyo horumarka deegaanka jira iyo xaaladda caawa aan soo nimiday laftigeeda xoogee dulmar inoogu samaynaya raalli ahaada meelo fara badan oo fog baad ka timaadeen xoogee noo samra waad mahadsantihiin gudoomiye soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً waxaan rabaa horta inaan dhammaantiin inta shirka ka soo qayb gatay u mahad celiyo waqtigooda qaaliga ay u soo horeen dalkooda iyo dadkooda garab istaaga horumarka cadaaladda iyo dawladda iyo maamulka suuban ee ka han qaaday DDSI caawa halkan u fadhidaan baan horta awalan idinka mahad celinayaa walaalayaal saad ogtihiin shirkeenana caawa waa taageeridda shirkii 11aad ee xisbiga iyo xukuumadda wada tashigooda ee ka dhacday degmada Raaso mataqaana dhowr bari ka hor waa shirkan waa taageeradiisii waxaan ku run ahaantii jaaliyadda UK iyo qof kasta oo muwaadina taariikhdan soo maray oo ama Xuseen ka sheekeynay iyo mid ka sii xun oo tii dhargigii iyo mataqaana boqortooyooyinkii soo gumaystay dalkeena iyo dadkeenaba ee hagardaamooyinka waaweyn u geystayba yaani caawa haddaan iraahdo waan ka sheekeyna ama se buwaag baan ka qori de ma soo koobi karo marka idinku daalin maayo arrimaha ayaga laakiin waxaan idin sheegi 10kii sano ee u dambeysay dawladdeena maanta uu hogaaminayo mudane Cabdi Maxamed Cumar xafidullah baan leeyahay wuxuu soo gaarsiiyay meel ay killadii kale iyo ummadii kale hatta ay naga maseeraan development-geeni horumar meesha uu soo gaarsiiyay waa xukuumad lahaansho daleed iyo wadaniyeed iyo go'aan xisbiyeed iyo development habeen iyo maalin fasaxada kaabaneed kuma qaadanin baan u maranayaa 10kii sano ugu dambeysay si ay u soo gaarsiiyaan qoomiyadaha kale qoomiyadda Soomaaliyeed ee ka hadha qoomiyadaha kale ee la cadaadin jiray ee la gumaysan jiray waqtigaas dheer ee dalkooda waxba laga qabanin waxa ma taqaanaa aad ogtihiin oo ma taqaanaa wiigii hore kaliya haddaan soo qaado wiigii hadda ugu dambeeyay inta development ay dawladdeenu samaysay awalan waxaan ugu hambalyeeynayaa dadkii la xaqiri jiray ee Soomaaliyeed ee isku diinta nahay ee isku kalarka nahay ee isku luuqada nahay ee inu wada degno ee ma taqaanaa la cusuriyeynay waqtiga dheer
cabdi maxamuud cumar taariikhda baa xusi doonta يعني عدالة الردي دت كان لوها إنه يدينه عندما leadership دت كان عدالة الرد بلغوا ما سمعينه أو يرهده هذا علماء التهين إيه هذا المتقى أن عقوية هنتين شكلنا ضربتين هبل بمدجاني هبل بتمارة ده واحد سوا مجع سوا مارد ساسو كله قبيلة مجع ولا قبيلة مجع ولا مجع هو normal لكن دت كانوا ماله دت كجل ليتان iyo meel ay idinkaga xun yihiin iyo meel aad ma taqaanaa aad kaga sareysaan waxa weeyaan midna ma jiro taa inuu ma taqaanaa xukuumadeenu ay ku talaabsatay oo madaxweynuhu ma taqaanaa go'aankaas ayada uu leadership-ka muujiyay shacabkeenuna ku raacay maantana deegaankeenii wax la yiraahdo hebel baa Tumaali hebel baa gabooyi hebel baa maanta dad siman oo Soomaaliyeed oo ku abtirsan DDSidiin hambal baan leeyahay waan ugu hambalyeynaya waxaan kaloo ugu hambalyeynaya jaamacad tii labaad waxaan ma tii afraad weey jaamacadii afraad weey qabdaar waxa laga furay waad ogtiin weekii hore isku week weey waa week aan ka hadlayaa aan ku jirin dhamaanin yaan ka hadlayaa jaamacad ay 24,000 oo arday ku xaroonayso oo campuskeedii researchkeedii every faculty leh oo ma taqaana oo laf dhabarta intaas oo generation oo dambe soo socdo Ethiopia ma aan kale DDS ama Soomaaliyeed ay dhigan doontaan buu xariga ka jaray waxa weeyaan ma soo koobi karo haddaan ka hadla developmentiga uu deegaankeenu gaaray iyo tallaabooyinka wax ku hoolka ee taariikhda xusu doona cabdi maxamuud cumar iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia iyo kabineetkiisa iyo ma taqaana shacabka ay gaadheen haddaan caawa ka sheekeeyo waqtigu ma idinka dhamaanaya ma ahane aniguna ma soo koobi karo idinkuna ma taqaana waqtiga inaga dhamaan laakiin waxaan idin sheegayaa maalmahan dambe social media-da winoognahay in nolosha ka dhacday waxa weeye qofka Yurub ka shaqaysan waaya ama Mareykan ka shaqaysan waaya inuu ma taqaana uu ku mashquulo يعني DDSI oo madali ma taqaana development-ga aragtay gaadhay oo hunguru xumo halka dadka uu dacaayaday waa wax laga xishoodo way waxana weeyaan indhuhu waxa weeyaan iyo waabari sacab lagu ma qariyo DDSI waxay marayso maanta yani social media nin joogiyo nin meelaha ka qeylqeeliyo midna loo joojin maayo waxa weeyaan DDSI horay bay u socotay waa tareen socda ciiday u joojini malaha inaguna waxa weeyaan waxaan horta garab taaganahay midnimada DDSI waxaan garab taaganahay development waxaan garab taaganahay stability iyo nabadgelyada waxaan leeyahay jaaliyada DDSI UK hambalyo halka ka sii wada hawsha gudoomiyaha aad buu mahadsan yahay soo waqtiga inoo soo koobaya run ahaan waa run isbedelka horumarka ee deegaanka ka dhacay waxa kana ku soo koobi karna maaha international airport haday noqoto studio haday noqoto jaamacad haday noqoto biyo gelin oo dadkeenu biyalaan ay u dhiman jireen haday noqoto wadooyinka isgaarsiinta haday noqoto horumarka beeraha iyo xoolaha haday noqoto wax la soo koobi kara maaha inagoo qurbaha joogna laakiin deegaan la soconaa deegaanka maalin walba iyo tallaabada maalin walba deegaankeeni laga fuliyo waqtigiina ugu dheeraan waxaan haddana u yeedhayaa odayaasha UK ee jaaliyada oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Mooge haddii in yar waliba dulmaraan inaga siiyo waa xubin aad iyo aad u firfircoon aqoonyahan ah UK deegaanka ka soo jeeda una dhaqdhaqaaqa xuquuqda beelaha gabooye marka wuxuu dulmar inoogu samayn doonaa waxyaabihii uu soo joogay iyo taariikh ahaan iyo deegaanka xuquuqdii ay lahaayeen sidii ma taqaana loo hirgeliyay maxamed mooge waxaan leeyahay walaal ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي شرفتا aad u qiimo badan xafladan quruxda badan leh dadkii soo qaban qaabiyay aad baan idin salaamaya waan idin soo dhaweynaya ugu horeeyo walaalkay Cali gudoomiyaha jahliyada
iyo dhalinyarada kale iyaguna la shaqaynaya ee had iyo jeer u taagan inay horumarka ka qayb qaataan waad mahadsantihiin haddaan marka hore iskiin baro aniga maxamed moogaan la yidhaahdaa waxaan ahay nin gabooya gaar ahaan waxaan ahay nin muuse dheriyo reer tallaabo caddaa soomaalidu waxay tidhaahdaa ninka dulmiga dhadhamiyey bay cadaaladdu macaantay cadaaladdu aniga aad bay igu macaantay waxaanan u dareemayaa si aanay idinku dareemin bacda salaan taariikh yar baan ka sheekaynayaa xilligii islaamkii markii ay ku dhibaatoodeen maka waxay u haajireen carrada loo yaqaano abasiiniya berigii hore la odhan jiray makana loo yaqaano etoobiya ayay u haajireen sababtay ugu haajireenna waxa weeye cadaaladii markaa ka taagneyd waxaan isleeyahay madaxweynaha waad mahadsantahay walaal DDSI wuxuu annaga noola mid yahay axmed inagaashi ee dadkii muslimiinta ahaa ee halkaa u cararay nabadgelyada siiyey buu noola mid yahay iga raalli ahaad hadduu calanku iga yaro dhacay ninkaasuu noola mid yahay dadka soomaalida ah weligay umaanaan ducayn manaanaan habaarin umaana ducayn oo nagamay mutaysan manaanaan habaarin oo nagama go'aan laakiin cabdi maxamed cumar waanu u ducaynaynaa halkan markii uu yimi doorkii hore jahliyadan uu yimid safaaradda shahaadad sharaf baanu siinay haddii uu mar labaad yimaado ama wadankii tagnana waxaanu siinaynaa cumaamad Soomaaliyeed baanu saaraynaa waxaan doonayaa inaan laba arrimood taabto mid waa hore horumarka wadankii iyo dadkiiba ay gaadheen oo mid ah iyo talabaad labadii shir ee ugu dambeeyay ee imika raaso kii ka dhacay kii ka horeeyay jigjiga ayaan jecelahay inaan waxoogaa taabto xagga horumarka markaan ku horeeyo dacadna looga sheekayn maayo nin fariiduna uu ogyahay doqonna loo sheegi maayo intaa waxaan ku darayaa waxa ugu dambeysay jaamacaddii imika laga furay qabri dahar laga furay baa ugu dambeysay horumarka taasaa idinku filan biyaha horumarka nabadgelyada waxa kale oo idin sheegaya annagu haddaanu dadka nahay magaalada jigjiga xuquuq badan baanu ku haysanay hore ugu haysanay imikana mid taa ka fara badan baanu sugaynaa waxaan idin xasuusinayaa waqtiyada kamid ah markii halkan uu cabdiimid uu noqday in uu ka dhigay maayarka magaalada jigjiga ninaanu aniga qaraabanahay oo ninkii yaqaana u yaqaana engineer guuleed dheeg la yiraahdo imika Australia jooga ayuu maayarka magaalada ka dhigay kamay dhicin maamulada Soomaalida si fiican baa la isu yaqaana kamay dhicin iska daa maayarka magaalada waxaan ku umay dhawaan weligood iyo allahood arrintaas waa arrin aanu xusayno taariikhduna qorayso sharaf iyo karaamana wuu ku leeyahay ajir iyo xasanaadna Allah ka siiyo waxaan idin sheegayaa dadka bil'aadmiga ah waa saddex weey waa qof wuxuu maqlay iyo wuxuu arkay iyo wuxuu dareemayo carabiga waxa lagu yiraahdaa maxal waa saddexdaa weey marka anigu waxaan dareemayaa waxaydaan idinku dareemay wanaaga socda aniga wuu iga qiimo badan xafladan caawa aynu joognaa way iga qiimo badan tahay wax kasta waayo wax badan oo aan ogahay baa jirta taas waa horumarka weey arinta guurkaan ayaanu soo noqonayaa iga raalli ahaad arinta guurka imika laga hadlay baan u soo noqonaya horta marka ugu horeysa walaalayaal annaga hablala'aanina ma hayso laakiin anigu imika dhakhtarad baan qabaa labaan qabaayo mid waa dhakhtarad weey rumaan idin sheegay hadday ii suuro gashana caawana halka waxaan rabaa inaan laba kale kaga darsado arintu marka hablala'aanina ma hayso laakiin ujeedadu waxa weeye tiirkan xune dhexdeena yaala in laga qaadaabaa loo baahan waayo de waxayna kala xidhayaa ma jirto annaga qolada iyadan Yurub imika joogtaa de horta dhib badan nama haysto kuwii idinkaydu gumaystay baanu annagu guursanaaba laakiin dhibku wuxuu haystaa nimanka wadankii joogay waxaanu leenahay cunaqabateetan qaada baashan maxkamadii miyaanay abiil balahay hadalka walaalayaal idinku badin maayo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya magaca jahliyadda UK iyo Yurubba anigu waxaan inuu dhaqdhaqaaqo xuquuqdan
waayo xanuun badan bay leedahay waxaan islaabal xunaad ka qabatid laakiin waxa ilaahay ma hadiyay nin baaba iga soo gaadhay cabdi maxamed cumar baa markiiba baashiiba soo afjaray arinta imika labada shir mid waa mid caam ah oo kii raaso ka dhacay weeye dadkoo dham isugu yimaadeen oo Soomaalidu u dhamaayeen laakiin anigu arrinkan taabanay waxa weeye kii jigjiga ka dhacay maalintii dhaweeyta lagu qabtay beelaha iyaga lagu casuumay ee boqorka iyaga ka tagay Hargeysa halka uu tagay imikadana caawadan uu igala soo hadlay uu joogo arinta muhiimkii waxa weeye walaal in la wada hadlay oo wixii dhibay aanu tabanayna dadka waxaanu ugu jecelahay qofkan dhageystay waxaanu tabanayna na maqla ayaanu ugu jecelahay annagu waxaanu nahay dad horumarka jecel dad madaniyiina dad xadaarad leh marka taariikhda dib ugu yara noqdo waan idinkoon kabalahayn baanu kabaydiin tol idinkoo sida xoolaha wax loogu qashay idan aqoon baanu midiidii sameeyso aanu idin tan waa lagu qashaa maxaar baanu idin sameeyno mudac baanu idin sameeyno haddaba abaalkii maxaa loogu abaal gudeen abaalkii waxaan idinku cafiyeena horta marka ugu horeysa arrin baan doonayay inaan walaalkay u sheego cabdi maxamed cumar maraykanku liis buu sameeyay leeyahay liiska argagixisada mar boqol ka saara cabdi maxamed cumar maanta liiskii cusreeda waanu ka saaray annagu hadalka walaal idinku badin maayo haddaan isla hadla wax badan baan tabanayaa hadal iga dhamaan maayo laakiin murtidu man ka raacaya murtidu waxay tahay inaynu arrintan ka wada shaqeyno oo dhibkan meesha yaala inuu ka wada shaqeyno anagu diyaar baanu nahay annaga xaq ayaga diyaar baanu nahay taladii walaalkii cabdi maxamed cumar noo soo jeediyana waanu qaadanaynaa ee dhinac walba haday tahay waxa kale oo aad u soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay magaalada jigjiga waxay doonaan ba ha noqdaan arrintan iyo guurka ee la yiri boqol baa la isku daraya taana bal waxaad ka qabtaan way cadeen qoladiina halka fadhida waxaan marka hadalkay ku soo gabagabeynayaa sidaan markii horeba sheegay walaalkay cumaamad sharaf labaanu saarnay waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa oo leeyahay walaalkay cabdi maxamed cumar dadka qaar baa jiray iyagoo wax badan ogeyn oo waxba hubsan siday doonaan u hadla waxa laga yaabaa walaalkay in hadalla dhacay meelaha ay ka soo gaadhaan ciday doonaan ba noqdaan waxaanu leenahay u dhabaraaday oo noo dulqaado waliba 100 jeer horaanu kugu sii qadimaynaana raalina ah baan ayaanu leenahay waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaa walaalkii waan u ducaynaynaa hawsha uu hayo ilaahay ha u fududeeyo inagana waxa la inaga doonayaa inaynu isbarbar taagno oo aynu la shaqeyno in wanaag iyo horumarkaba kala shaqeyno waanad mahadsantiin kelmad yaro kaftan aan ku soo xidhayaa waxa la yiri magaaladii jigjiga suudkii uu ka dhamaaday baa la yiri dhalinyaradu waa wada diyaarinaysa aad mahadsantiin walaalkeen Axmed Mooge aad iyo aad buu mahadsan yahay kaliya hadii uu xaqiiqda iyo taariikhda ka hadlo wuxuu hadda ku soo koobi karo maaha maanta se waxa uu sheegay ninka xanuunkii dadku soo gaaray ayaa garanaya colaadda ninka taabatay baa nabadgelyada iyo nabadda iyo horumarka garan karaya maanta inagu qurba joog hadaynu nahay waynu ka aqli badan nahay kuwa wadankii maanta jooga gabdhaheenni Jamaican iyo Caddaan iyo Afrikaan kale iyo nooc walba way guursadeen wiilasheenni sidaas la mida naaga cad naaga mataqana madow cid walba way guursadeen marka maanta dad aynu diin ahaan iyo dhalasho ahaan iyo dhaqan ahaanba aynu cid walba iska xigno waqtiga casr jaahiliga rasuulku wuxuu yiri gowracay buu yiri qabyaalad asaaska ummadda baabiisa ee burburisa waa qabyaalad weey qabyaalad hadii laga gudbo ummaddu gacmo is qabsanaysa qofku haduu shahaadanayo iska daa kaynoo wada dhalanay ka Australia Caddaan iyo madow xajka tusaale inoogu filan maanta xajka la isku tacarrafo la taagan yahay inay diintu diin islaam ay tahay oo cid walba ay u furan tahay oo sida diimaha qaarkood dad gaar ah ayna lahayn dad islaam aynu nahay dad walaalaan nahay dad wada dhashay baan nahay ma kala maarano waxaan u baahnay generation keena cusubi inaynu arintaasi wax ka bedelno waxaynu ka bedelno waan soo dhaweynaa mowqifka walaalkeen hadalka waynu ugu badiyay raalli ahaada waxa halkan inala jooga odayada kamida Suldaan Faarax Xasan ayaa isaguna baldhowl kalmadood inoo oran doona hadii ilaahay loo dulqaato hana la soo dhaweeyo
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدين والدين الحمد لله رب العالمين إلهي باب محد له وهرين وحنو محد نغيا حفلة نيضة مداشة قروح ضبطان له قديدة قدوميها iyo gudidan kale la socota iyo marti sharaftan quruxda badan ee halkan isugu timi iyo dhamaan xafladan iyada dadkii soo abaabulay aad iyo aan baad guud ahaan idinku mahadnaqaya walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrinta tan markuu dahaan waxaynu u mahadnaqaynaa oo aan aad iyo aad u ayidsanahay xukuumadda maanta ka jirta ismaamulka Soomaalida ee uu madaxda ka yahay Cabdi Maxamed Cumar uu hogaaminayo oo aynu ognahay halkay maanta gaadhay inay wadankii ismaamulka Soomaalida wada gaadhay iyo horumarka ay ka samaysay iyo nabadgelyada iyo midnimada ay isugu yeedhay ay wali wado waanu ugu mahadnaqaynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu ku barbartaaganaa runtii waa wax loo baahnaa aad iyo aad maanta biyihii iyo wadooyinkii iyo laydhkii iyo nooc ay u tahayba iyo iskuuladii halkay marayaan waynu ognahay taas waanu ugu mahadnaqaynaa innagana waxaan idinku boorinayaa inaynu gamcaha isqabsanno oo midowno oo danteena ka mid noqono oo qoomiyadda Itoobiya ee maanta soconaysa aynu qaybta aynu ku leenahay ka qaadano guud ahaanna dalkana wax la qabano inaguna waxaynu gaar u leenahay waxna dadkeenu la leenahay waxna gaar baynu leenahay waxaynu dadka la leenahay guud ahaan inaynu qaybteena ka qaadano waxaynu gaarka u leenahay inaynu gaar u qabsano walaalowno oo gamcaha isqabsano ayaan idinku boorinayaa dhamaantiin insha Allah bilbillahi kariim meel kasta in joogno ilaahayna wuu inagu garab gelayaa Soomaalidu waa dad firfircoon oo haday wuxuu soo joogato way qaban kartaa ilaahay xaqaha ina dulmigana inaga qabto taa intaasaan kaga gudbayaa aan isbarbar taagno waa barbar taaganahay walaalayaal dawladda iyadaana waynu la shaqeynaynaa haddaan soo gudbo arrintan kale ee laga hadlayo cunsureedda ilaahay wuxuu yiri sida quraanku inoo sheegay anigu idin dulmi maayo dulmi waan idinka xaaraantinimeeyay idinku hays dulmiyana ilaahay dulmiga dadka Soomaaliyeed walaaladeen hayna la diinta ina la dalka ina la degan ina la mid ah dulmiga aynu ku hayno ilaahay hayna garansiyo inay wanaagsaneen oo aan ka qaadno waanu ku barbar taaganahay madaxweynaha fikirka uu soo jeediyay iyo dulmiga walaaladeen inaynu ka haynayno tuuro cunsuriyada inagoo dad islaam ah oo meel ku wada dhalanay runtii waxun bay ahayd aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana soo dhaweynaynaa waa ku barbar taaganahay idinkuna walaalayaal soo dhawaada walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin kolay anigu intaasaan ku soo ururin
iminkana waxaan u yeedhayaa inuu dhowr kelmadood meeshan ka yidhaahdo maxamuud sheekh odayada jaaliyadda ugu firfircoon ka mid ah dadka nabadda iyo xukuumadda garab taagana waxaan leeyahay maxamuud soo dhowo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين انت كسو قيب كشي شركا آد بادو مهلسنتهين شركا او مناسبة ديسو هاي حزب جينا تاغيري ديسا يو آد بادو مهلسنتهين شركا انت سوق وقابسي يو انت تيمد با ميلاه فوق كلي يميد آد بادو مهلسنتهين عاوة معني هذا البضل ماشي الله وابا هذا الكل أولا لها قدوميه وضياشي قوه ريا دميي وحويان waxa kaliya maanta aynu halkan aynu oraahdeenu ay tahay waxweeyaan taageerida xisbigeena waynu taageersanahay waynu garab taaganahay waxa la wax go'aamo soo jeediyana waanu ku raacsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maxamuud aad iyo aad buu mahadsan yahay. garaad cawil soo dhowow laba kelmo xaggan ka dhe oo dardaarana iyo dhiirigelina iyo hambalyaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا هذا البدران مايو سببته والي وحي عن أوران لهذا وحان سيادة وهم ورتا وحانوهم بليين يا وقون تاجر ذين باش سقول نبي حسبك دولة ديجانك الصومالي ذا إثيوبيا إنه هجامية حتى إنه الصومالي النهار guushaas laga wada sheekeeyay ku dheeraan maayo de waqtiga maartay hadalku hadii lagu celceliyo dhadhanka ka luma waxa kale oo u mahadnaqayaa de saaxiibkay suldaanka mooge in badan waxaan u maleynayaa inay 20 sano ahayd intayni hadayna ka badnayn de ragii aanu halganka ku wada jiray quudsigu qiil maleeyahay dadkii isla soo maray baanu ahaynoo أبوه تراويو قد أضيعين جالية موسى شاك حريريو ركبضان ودي ماركتي قارنا دنتي قارنا نولي هاي وحنو إسلا صومر دي ماركتي رنتي واسدا وشيغيو دي وحالي هذا بارك الله بالحبش ماركتي حبش كوحلو يقاني دت كمدو Soomaaliduna way ku jirtaa koobaynu ka nayo islaam iyo madow hadii la sheego Soomaali baa lambar 1 marka sida uu yiri way asxaabtii ugu horeysay baa u hijrootay runtii dulmiga wixii ka cararayayna xagga iyo jigjiga u hijroodeen aniga isaguna waa ka daba tagaynaa taana horta intaas waa mahadsan tahay waxa weeye inaga hadaynu jaaliyada nahay waxaynu joognaa dunidii la yiraahdo maaragtay de way ka gudubtay habkan beeraha oo waxay u gudubtay hab bini aadam waad aragtaan dalkan aynu joogno waxa la yiraahdaa wuxuu adduunka kaga hormaray waad ogtiin China quruun afkeeda aan la dhan joogin miyaa jirta كلر أنشوجي نمشورو ميدا بأنشوجي كورم بالقويس كالصوماليات قرنيقا لبيا لباتنات ولي ماركتي وحامل مدو كتشرو ورنتي دادكي مديدا إنو حولها كقرام ولي ما وحاكوه الرئيسي مديها ايو درما إنا لهان ترينو درما ترينو وحال حيران تري بهالدول لينا هدو هرقا halkan waa baqaali oo de waa leedar ka maaragtay leedarka iyaga inoo sameyn jiray dhuuga dhuuba la oran jiray anigu waabaan arkay dhuuga isagoo maaragtay la tolay oo hadii halkan lacag badan buu goyn lahaa waa kabaha wax aynu garanaynin ma jiro waxay aayad quraana waxay tiraahdaa al-a'raabu ashaddu kufran wa nifaaq badownimadu waxay ka adag tahay وأجدر بإلهي سيد بدر وحيك عنصتها يكحنتها قال نمضة يا منافق نمضة يا بدون نمضة مركا ده سيدا كلا دتكم مركا بدون يهين إسلام نهين ويسكفي عين لكن حضارته يا في عن أو حضارة وامحي وتقدم
oo tuulada waxaa ka fiican degmada waxaa ka fiican magaalada weyn caasimadda marka waxa weeyaan intiina soo xaadirtayna ilaahay khayr iyo jazaa idinka siiyo waad mahadsantihiin waxaynu u baahannahay inaynu jaaliyadu waad aragtaan maalin walba ama 10 qof ama 20 qof baa yaa soo qoraya war inaad ogaataan jaaliyadan inaad leedihiin oo kumayaal aynu gaadhno oo midnimadeena iyo Soomaalinimadeena iyo deegaanimadeena iyo jaaliyadnimadeena aynu xoojino yaa loo baahan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أول آديات وما تسنيهاي عشرنا وينوس عنيسا وحن كبقيا إن هواينكم محكمة الساران وأقاتيننا من رجل ماشن صوصفي إني ما يلاون لا أنتين وحنا ما قبسن كرنو لا أنتين وحنا ما نقون كرنو إذن كجالية دن لفدبروا وحن كسر وين يا دور هواينا إفراح سودو إفراح عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان وحن سلام يا ولا الله يعاو هالكسكوي يمد مدشان قروح ذبضن وحاكلون مهد علنيا أنتي كسر شقيسي هرمود كوكيه قدومي علي تخل يا أنتي لا شقيسي بآدي هذا يومات سنين وحن هالكن تهنيد يا ضمبال يا سلام وقدر يا مدحوين عبد محمود عمر دولة دجان كصومالي توبيا مدحوينه هذا وحقيقة ذي وحويان وابري صعب لغما قريو هرمود ونقضي ومقع دولة ديان كسومالي توبي شعب كذا موجيه انت وسقو مدحدا كيهي ودنك اون موقناي runta marka laga hadlo weeyaan waxa weeyaan waad ogtiin dhowr goor inta aan ku celceliyaa hadalka budgetka waa la celin jiray madaxweynayaal ka horeeyay way jireen budgetka Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ka soo qaadaa lacag kale oo dheer iyo ku daraa wadanka wuu dhisay laamiyo dhisay ceel buu qoday meel lagu yaraceel laga helayo hore looga waayo ka helay marka waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeyaan uu nooleeyay dadkiisa shacabkiisa wixii ka soo horjeedana iyaga kulay waxay way khaldan yihiin marka anagu taageeran u nahay waa madaxweynaheeni anigu mar walba marka uu xitaa doorashada ku jira mar walba waan garab taagnaa waligeena waan garab taagnaanaya inta xukuumadda hayo waa madaxweynahayga waan salaamaya waxaan halkan taaniyad uga dirayaa oo kale jaamacadda quruxda badan qiimaha badan ee laga furay gobolka Qabri Dahar gobolka Qorraxay magaalada Qabri Daharna aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa oo wax fiican ah aad iyo aad waxa weeyaan jaamacadii waa naloo badiyay intuu isagu yimid weeyaan jaamacad buu noo soo helaa iskuulo sare la dhisay adduunyo dhan baa naloo dhisay dad iyo nimcada dadka uga dartaa u malayn show nimcada soo dhaweeyay barwaaqo aan ku jiro ma sha Allah waxa kaloon halkan aad iyo aad arrinuu madaxweynuhu hormuud uga yahay aan ku taageersanahay waxaan ku faraxsanahay sida uu cadaalad u simay ee beesha gabooye uu soo dhaweeyay ee uu yiri waa la simay sinaan iyo cadaalad weeyaan aniga waxa weeyaan khaasatan beesha gabooye waa walaalahay gobolka Faafan baan ka soo jeedaa waana wada degnaa wiiliya waxaan nahay abti walaalaan u nahay marka waan ku faraxsanahay walaalahay ha soo dhawaadaan garabkeena weeyaan waligaan waan wada deganayn madaxweynaheenu waxa weeyaan Soomaalibu kow yahay kow u yahay ninka sheegay weeyaan kaliya ee dadkii simay weeyaan ma sha Allah aad baan taan u soo dhaweynayaa waad mahadsantahay walaal waxa kale oo soo dhaweynayaa socdaalkii uu dhawaan ku tagtay xukuumaddu gobolka magaalada Raaso shirki ka qabsoomay koobitobnaadka ahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya aad iyo aad baan idin u soo dhaweynayaa gabdhahana in kulay way hadli doonaan laakiin inta badan qaarkood waxay yiraahdaan aduu noo hadal marka way ugu wada cod kulligood marka saas ayaan u soo dhaweynaynaa anagu madaxweynaheena waa garab taaganahay jiro oo joog guul waliga DDS indhaha noo furtay indhaha Allah ku furo waxa weyn garabkaaga Allah galo waxa weyn cadawgaaga Allah jabiyo waa ku ducaynaynaa madaxweyne noolow aad iyo aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إفراح أد ياد بومات سنتهاي ليس ليدي بيومبان أخري حياة البروتوكول هان إن أنا يورو قدوميها هوينكا فاطمة خليف بركا وهر القليبان كبحنايا
ولا شيء ينوقع ذنن قف بلاد من أنا هو خدمي كرا من أنا وطلع قال معها قدوم يسودو سودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرت الشرفك قبلها ويلشا كل يا تعبان السلامنا دي ساي هالقمياشة الروح ذا حسبك تاجر ياشا ما شاء الله تبارك الرحمن بارولينا عاوة مداشا وحانا يسكوني مدي حلفة وين بلارنا نوقبني وحانا كتاجرنا شروينه بلارنا كدعي شروينه بلارنا كدعي دقمة الراسو وضطشيقا حزبك إيوه شعبك حكومتنا لا تشنيس حكومتنا لا تشنيسي حكومتنا لا تشنيسي شعبك صلادينتا دلينيرada hooyooyinka waxaan leeyahay hambaliyo qodobadii ka soo baxay shirkii maartay isha wada tashiga ahaa raaso waxaan leeyahay hambaliyo waana taageersanahay hiil iyo hore waanu garab taaganahay hadaanu nahay jaaliyada DDSI UK diaspora iyo dhammaan maartay isha shacabka DDSI waxaanu leenahay xukuumadda DDSI ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar markii ay timid ayaanu helay hadaanu nahay shacabka DDSI horumar sinaan iyo cadaalad waxaan leeyahay kuwa ka wada baraha bulshada ku tiro ku teena social media-ka beenta aan waxba ka jirin ka wadow waxaan leeyahay dawladana dhaqaaqdaye shacabkeedii qurba joog iyo qaran joog ayaa hiil iyo hooba u haya kuna faraxsane ha mashquulin oo maadanihiina qabsada sidii maaragtay isha kuwii nabadiidka ahaa maaragtay la soo afjaray ubo laga taqalusay lala soo hanuuniyay qaarkood ay kamid yihiin maaragtay isha ciidamada new booliska waxaana isku soo dhaweynaa gacmo furan fikrada cariiri ayaad aaminsan tihiin marka ka tanaasul ayaanu leenahay fikrada cariirigeeda dhammaan khayr baan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo dawladeenu ha noolaato madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumarna ha jiro ha joogo sineeyow waar waliga oo hogaabi aabihii ummadow aabihii DDSI guulayso ayaanu leenahay raalli ahaada kulli meel fiican bay xafladii noo maraysaa dhisu waa dheeryahay amoodina in laynaga tago odayaal iyo haween ahaanba laakiin bal waxaan rabnaa waxoogaa dhextaala inaynu samayno inkastoo ay wax cunayaan waxaynala joogta fanaanadihii qaaliga ahaa saafi iyo nimcad dareen baa inala jooga iyaga laftigoodana inaanu mataqaanaa aynu labadoodaba si wada jira ugu yeedhno ay hadalla ka dhiibtaan deegaanka xogaalba u yihiin xaggii fanka iyo heesihii iyo dhaantooyinkiina inay waxoogay noogu dhuftaan oo waxoogay mataqaanaa fadhiga ka kacna loo inkastay hadda wax cunayaan bal waxaan ku soo u yeedhayaa wariye maxamuud siciid oo dhowaan deegaankii ka yimiday xoogaalna inuu isna laba kelmadood halkan ka yidhaahdo ayaan u yeedhayaa maxamuud siciid بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارة الدمان عاوة هالكي سقوتمي وحا فرحة إن أنا سقوني من هالكن شركي كويتم الجورد أها وطن كاني أم دولك هو يكرد دوان حقيقي أنت أنشوج دولك وحان عاد غفر حي حاجة تعلينته أو دليل إني صغير هذا إلا كوا كان جاري عاد وح أبرنيان إلا هير شام عادات إلا هير دوس واسع وحا عاوة خيارتي هالكن كوضع هذا الشيء عن كم مقال
oo la yara ilaaway dhab ahaantii madaxweynaheenna horta waa in loo duceeyaa soomaalida inta badan waxaa moodaa in ay ku yar tahay ducada madaxda markaa u duceyso baa ilaahay raalli uu ka noqonayaa in uu si fiican u hawshoodo hawsha uu qabto madaxweynahana cidda danta ay u tahay mar walba waa inaga oo shacabka ah waxaa halka caawa aan laga sheegin oo dhawaan dhulkii ka dhacay waxa weeye gargaarku u fidiyay madaxweynuhu dhalaankii ahaa agoomaha run ahaantii waxay ahayd arrin aad loogu riyaaqo kadib markii ay dawladdu gacan u fidisay bakhtiyaa nasiib ah hooyooyin badanna ay ku guulaysteen lacag aanay weligood ku riyoon jaamacadda cusub ee hadda la furay hadalka akhyaartii iga horreysay baa idiin warrantay anigana intaaba iga tahay habeen wanaagsan aad baa u mahadsantihiin guul baa shacabkeenna iyo dhulkeenna u wada rajeynaya insha allah iyo madaxweynaha aad iyo aad buu wariyaha u mahadsan yahay caawa waxa weeye loo kala bixi maayo ha u qaadanin inaan idin lownay waxaan u yeedhayaa halkan dr xuseen maxabuub oo laba kelmadood isaguna ka yidhaahda doctor soo dhawow haddaad maqlaysid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرقوه الرئيسة وعن سلام يا dadweynaha sharafta leh xafladan isugu yimid oo qayb walba leh waxaan hubaa inaad buuxiseen kaalintii laynaga doonayay oo laynaga rabay waana idinku mahadinaya marka labaad waxaan hambalyeynayaa xisbigeenna shirkiisii ka dhacay dhawaan gudaha 10 sano jirsaday waxaan oranayaa waxaa hubaala inuu taabo galay horumar muuqda oo markhaati doontaan uu horseeday waxaan leenahay haddaba jigjiga ay horu soco ha soo noqon hannaan hashaadii gacantaad ku haysaa hareeraha ka taagnow inta habar dugaagiyo هوي كده ورابه. حكى هذلي وادي رجلين مركب برش سيده إذا بقونت إذا يدقاله إذا أي كردان وقصب إنه برش ذا كروبا هنايسو وحوي حلك وسر يبي جمهورية الصومالية كسوغبتين الله ونحرسته محمد علي السمطر ترجدوا عيدين كجاري قف صوماليو كجاري مجرين أنا كما هذليو ترجمين كان هذا الله بحية منطقة فورجريا كما هالله إنه سود ديدي وضبلا كسوب بلابي وترجع الصومالية كجاري نكاسا كجرا سراكيل بدن أو تاريخ الصومالي يهلكن كذي كسوق غير قاطع فربنا بيليه وحينو كهذا لنا وحوي كليه سدي حيدام كان ماشي على لوجا ساري لها إن أنا كلام مارمين إن أنا سكوتنا إن أنا سكوتينا إن دتك إسكح النوال لوجي هاي دقن كان عصر جاهلي وحنو يا محمد كوريا إنه لبك المكير هذا سولو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واردس وحن مركو ورس السلام يا شركة بلارن قيمها بدن iyo intii soo qabanqaabisay ayaan marka hore leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib waxaan aynu isugu nimid oo ajandaheenu uu yahay inaynu horta taageero madaxweynaheenna iyo xisbigeenna iyo dowladdeennii iyo horumarka ay maalinta ka dambaysa ku tallaabsanayso khaasatan kan u dambeeyay safarka madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa iyo hawlihii la socday iyo shirkii uu la tashiga dadweynaha ee uu ku qabtay raaso iyo hawlihii kooy jaamacaddii uu furay hawlihii ka soo reeyay ka mid tahay reerkan imika la sheegayay Soomaaliyeed ee uu hadii la moraaliyan iyo jisiyanba u taageeray arrimahaas oo dhan inaan madaxweynaha ku taageersanahay oo ku garab joogno
inaanu muujinaanu isugu nimid waanuna taageersannahay meel ay taariikhda xusi doonto gaarsiiyey marka waxaan leeyahay xisbiganaga iyo madaxweynahanaga waanu idin taageersannahay hore u sii socda ilaahayna garabkiina ha galo marka dhammaan dadweynaha meesha isugu yimid aad baad mahadsantihiin intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed aad buu mahadsan yahay waqtigoo inoogu kooban la sugayo fanaaniin qaran ay meesha joogaan saafi iyo nimcad dareen iyo anise ismaaciil oon ka tegay okay bes waxa weeye halmaan hadalku ma jiro dadku waxay yidhahdaan fadhigii baan ku jectadnay fanaaniinta noogu yeedh fanaaniinteenna qaaliga waxa weeye waan soo socota ogaasaa soo socota fanaanada qarankana waan ku dhejisiin doonaa soo dhawaada taaleada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا dadka sharafta badan ee meeshan isugu yimid dhamaantood iyo gudoomiyaha iyaga sharafta leh cali takhal iyo ku xigeenadiisa oo dhan waxa kale oo salkan ka salaamaya madaxweynaha iyaga iyo kabinetkiisa iyo wadankii shicibka jooga oo dhan meel kasta joogaanba DDSI waxaan leenahay ilaahay ha nabad yeelo cadawgiisana allaha jabiyo cimrigiisa allaha dheereeyo waxun allaha ka xijaabo waan wada jecelahay waanan u halgamaynaa kulligayo marka kulligii salaam calaykum waxaan salaamayaa dadka sharafta badan ee meeshan isugu yimid dhamaantood iyo gudoomiyaha iyaga sharafta leh cali takhal iyo ku xigeenadiisa oo dhan waxa kale oo salkan ka salaamaya madaxweynaha iyaga iyo kabinetkiisa iyo wadankii shicibka jooga oo dhan meel kasta joogaanba DDSI waxaan leenahay ilaahay ha nabad yeelo cadawgiisana allaha jabiyo cimrigiisa allaha dheereeyo waxun allaha ka xijaabo waan wada jecelahay waanan u halgamaynaa kulligayo marka kulligii salaam calaykum hooyo ogaaso oo ka mid ah hooyooyinkeenna qaaliga ee jaaliyadda kelmadaha qiimaha badan xaggan ka jeedisay ducada isugu jirta aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waxaan la yidhi waan caajisnay inaan dhidmaan u baahannahay waxaan u yeedhayaa fanaanadeenna qaaliga saafi baan u yeedhayaa saafi soo dhowo saafi haddaad walaalay maqlaysid soo dhowo halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya cabdi maxamed cumar baan salaamayaa salaanta ugu qaalisan ee cid bini aadana lagu salaamaan ku salaamayaa waxaan u hambaliyaynayaa hadalkii geesinimada lahaa ee uu ku dhawaaqay ee uu yiri dadka gabooyaha iyo ha isguursadaan dadka kale Soomaalida kale ma sha Allah wallahi habeenkii hadalka aan dhageystay waan ooyay because waxaan ogahay dadkani waa dad dulman anigu saaxiibo badan baan ku leeyahay rag iyo dumar badan oo baa saxaabnaay anigu xilligii la guursan jiray waan dhaafay aniga hadda dhiilaha hal nin hal la isiiyo hal la igu bilaw aniga bilaha madaxweynaha cabdi maxamed cumar xamsha ana bilaab laakiin xilligii waan dhaafay anigu hooyo weyn baan ahay gabarna ma haysto wallahi oo billahi oo tallahi waan dhaaranaya inaan bilaabi lahaa hatta hadda gabar yar ahay laakiin ma hadeertu waan weynahay dadka been ma sheegi karo marka waxaan rabaa ragiina meeshan ka hadlaya ee nin waliba leeyahay waan taageersanahay nin walba afar baa ku banaan haddaad hal qabto mid kale ku dar oo xaggaasa haddaad laba qabto laba xaggaa ku dar madaxweynaha naftiisa waxaan leeyahay labaad qabtaa laba ku dar afar baa ku banaan sidaas bay sheekadu ku soconaysaa markaan inagu bilbilowno oo inagii warka soo jeedinay aynu bilbilowno dadka kalena waa inagu dayanayaan laakiin haddaan iraahdo aniga saa hal la sameeyo oon halkaa ka baxo waa inaan ka dhabaynaa wallaahi waa inaan ka dhabaynaa raggan nin walba gabar qaado hadda saas baan idin leeyahay waxaan ku soo dhawaynayaa
baa eedada oo ahay aad baan u jecelahay adoon kugu aad baan ku salaam الله يتيده أنا أد بندي سلامة يا أد بنقول فرح سنة هاي شركة لو قبتي راسه ميلا نادك على رابطي كيمادن مركا وانش علينا نشوفه لكن قامدك صباحي حكومة النصوص صارتي أد بنقول فرح سنة هاي أد بنقول سودونيا وحنا كل أد سودو كل جن حال بيننا هاي وحي هراء هيستوريكي هراء السكيلو إن حتى يكون رأس ويان أد بدي سلامية قدومية شدمان دي سايدنا أد سلامية حكومة الدين أد بنو سلامية دي سايد جرتو أجوكتو مقفياش نيلها نجا قبض شقي لها وسمية أنيسة هذا اللي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaantiin waydu wada salaamaya marti sharaftan qiimaha badan iyo dadka soo abaabulay xafladan qiimaha badan leh iyo gudoomiyayaasha iyo inta meesha joogtaba dhammaantiin waxaan isku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta hore ma rabo inaan hadalka badiyo anu dhanka heesaha iyo weyn hadalka isku fiicinin farxad bay tahay weyn anu waxaan ay gabadh ka soo jeedaa Somaliland فرحت بيئتها هي أذوين سببته أي تحي عاوة يجوه الرئيس صد حفلة DDS أي دولة ديجان كيتوبيا فرحت وين بيئتها هي وحنا دلله هي همبلية وحينوا وحيجا وحيجونا وحينا فرحت بيئتها هي أدبنا نديم والسلام يا دمانتين مدحوينا دولة ديجان كيتوبيا وحلاها هاي مقعه جرو هالك أيام الكسف عن كسيور طيب سلام يا عبد فلنتا وعن تاجرنا شركة راسو والتشجيع حكومة إيو شعب عليه هاي وتاجرنا دنا جليد UK وعن كل سودويننا قوانكي هاي قرشة الجوبية ديو سومالي كلامته وآد بان فكرة سيدنا سودويننا وعن كل سودويننا هرمركب العرل مدحوينها وحركة جري ورئيسه جامعة قبددار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سوق القرياشة هذا وسلامية حنادي هذا مهد علينا ابني قدق قبل قابضة حفلتهم آدكيات وقرفة بدل لينوسو دياري مامول كتالية هذه هذا وسلامية كل شركة نروح دارنا ولا جهة وحي هيد شركة كدعي شروينه كوبيوترنا كدعي دقمة الراسو كاسي وقامدي كسب بحاي لكتها غيرني runtii aad baan u soo dhaweynaynaa shirkada Nigeria DDS UK run ahaantii farxad weyn bay noo tahay inaan taageerno go'aamada ay soo saartay xukuumadeenu run ahaantii waxa weeye wax macnaha aan hore uga dhicin baa ka soo baxay shirkaasi qodobada waxa ka mid ahaa qodobkii aadka ay bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan Soomaalida DDS ay soo dhaweysay ee ahaa qodobkii in dadka la hayo sooco laga baxo oo dadkaasi ay yihiin dad inala dhaqan inala diina inala diira oo dadkeeniya oo walaalaheena si garanaysaa looga saari lahaa in hayb sooca lagu hayo sidii looga bixi lahaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa runtii madaxweyne Cabdi Maxamed Mar guulaha faraha badan leh oo uu soo hooyay oo deegaanka u soo hooyay aad baan soo dhaweynaynaa xisbiga dimuqraad shacabka Soomaaliyeed Itoobiya ha guuleysto ha waaro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فرحة وعن سلام يا بمان أنت سكوت من هنا ماشي من جريدة DDS UK وآد بينكم هذه علينا إياك سقف قلبك سقف قشان شركة قيمها بدن إنكم تاجري لي قام والبا يتلاو والبا وتحويل آد بينكم هذه علينا إياك بمان كسقف قرياشة أنت سواء بشيء وكميدة يعني أنا صراحة نكون فرح سنة الشركة ونسير نقول عن الشركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيد عيونك
Thank you.
Gloria a Dios.